Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxa aan rabaa in aan wax ka iraahdo ama ka hadlo hooyo Soomaaliyeed oo ooyeysay oo lahayd waxa weeye ninkaygii ayaa i khiyaameeyey oo weligay iyo allahay waxbaan ururinayay waxbaanu isku ogeyn waxbaanu meel wada dhiganay arrin baanu wada gorfaynay oo meel wada dhiganay waxaanu isku ogeyn inaan wax urursano waxaan ururinayay muddo badan oo 20 sano ah waxay tiri oo kale waxaanu isqabnay 20 sano 20kaas sano waxbaan ururinayay waxaanu ku tashanay oo meel wada dhiganay in aanu Soomaaliya guri ka dhisano dhulkayagi hadhow caruurtu markay noo koraan si gurigaas aniga iyo odaygayga ugu wada noolaano labadayadu aan ugu wada noolaano oo aanu meeshaas ku soo qaadano xilliga waayeelnimada taayirnaskeena marka waxaa dhacday bay tiri ninkii wixii aan 20ka sano ururinayay oo aan gunguntayay oo maxaan ku iraahdaa xarig iyo kaba isku xirayay ayaa buu la tegay wuuna ku soo guursaday guri buu dhisay guriga markuu dhisay waxaa dhacday in gurigi uu gabar yar ku aroosto kula aqal galo waxa weeye waxay tiri weligay kama xaragoon lacagta caruurtayda kama geyn meel cuno oo dibadda ah kama aanu soo wada cunin caruurtayda gaari waxaan watay bay tiri qoro ah oo aan iibsaday bay tiri long time xilligii aan isguursanayna ku dhow ilaa intaasoo dhan aan watay bay tiri gaarigaa waxay sheegtay qorada ah inuu marba meel fariisan jiray mar walba uu xumaan jiray oo mar walba ay iska samsamaysan jirtay kadib ninkii aan heerkaa soo wada marnay oo aanu meel wax wada dhiganay oo aanu wada tashanay oo aanu isku ogeyn inaan wax meel wada dhigano isku ogeyn in aanu hal wado wada maro isku ogeyn qorshe lacagtii oo 300,000 oo dollar ah ayaan gacanta ka saaray bay tiri lacagtii waxay tiri waa la dhaqaajiyay wuxuu la tegay dhulkii iyo Soomaaliya wuxuu dhisay gurigii markuu dhisay guri weyn waxay tiri wuu ku guursaday wuxuu guursaday gabar yar oo uu dhali karo marka hooyadan runtii aniga ahaan waxa weeye hadalladeeda ilama fiicnayn oohinteeda horta mid runa ilama ekayn laakiin Allahu aclam wax ay jilayso oo kale ayay ila ahayd indhaha meesha kore ee wax soo yara marsatay hal ilinna hana kama soo dhicin horta waxaan u jeeday waa ooyeysaa ilinna kama imanayso waxayna ku hadlaysaa hadallo runtii dadka dambe ee isqaba ay aad moodo inay isku dirayso oo waxay leedahay naag walba indhaha ninkaaga candhuuf kaga tuf naag walba ninkaaga ha uga asxaan falin dabcan hadday sidaas ay fakarkeeda ee run ka tahay oo ay jirto arrintan inay ku dhacday Allahu aclam wixii jira laakiin aniga waxay ila eg tahay wax qosol oo kale inay sameynaysay ay leedahay ilana kama imanayso indhaha candhuuf kaga tuf tuuriye eri
la dagaalan bay leedahay nimankii. marka runtii aniga xal uma arka sidaas, wax wanaagsanna maaha in familada la isku diro, ma wanaagsan. adiga hadday dhibaato kugu dhacday dee adigaa fikeri waaye, adigaa aaminay ninkaaga. in lays aaminana way fiican tahay runtii. qisadan qiso la mid ah anaa ka sheekeeyey hadda ka hor, anaa soo geshay, waxayna ka dhacday waddan aan joogay oon ku noolaa. weliba 3 qisaa ka dhacday, midba ugu darnayd. midda ka ugu darnayd ayaan ka sheekeeyey aniga. sababta aan uga sheekeeyin waxaa weye gabadhii oo xanuunsatay runtii. gabadhii ninka uu sidan oo kale ku sameeyey, lacagta intay u dhiibtay uu soo guursaday gabar macalinkiisa dugsiga uu dhalay, dugsi quraanka, macalinka dugsi quraanka u dhigayay gabar uu dhalay oo yar oo uu dhali karo ayuu soo guursaday ninkeedii. marka page-kaygay ku jirtaa, dib u raaca waad arkaysaan. marka waxaa weeye way dhacaan waxaan, oo ma dhacin ma dhihi karo, ama ma dhici karaan ma dhahayo. waa wax dhaca, mar kasta dhaca oo soomaalida ku badan. laakiin hooyadan ani waxay la ekayd oohinteeda oohin jilitaan oo kale ah, ama erayada ay adeegsanaysay oo ay dhahaysay tuurye, candhuuf ku tuf, kan yeel. marka indho gardarra hadday ooyaana maqli jira, indho garle maxaa moodaa. marka ilin ma arkayn aniga horta ka da-aysay wax oo action camal oo maxaan ku dhahda acting ay sameynayso kale ay ila ekayd. laakiin allahu aclam, dadka qaar ayaan ilintu kasoo daadanin oo kasoo dhicin, way jiraan dad noocaas ah oo fudayd aanay ilinta uga iman, wax ka tegay ee ka keenaan ilmada way jiraan. allahu aclam, kuma dambaabi kara gabadhaas. balse waxaan leeyahay hadday sax tahay oo jirto oo aanay acting ka ahayn oo aanay jilayn waxan, kole inkastoon aniga hadda wax run ah ila ekayn, laakiin haddana macquul weeye. waa horta wax dhaca weeye oo wax jira, oo waxaan ma dhacaan ma dhahayo, way dhacaan. laakiin haddana waxaa weeye ilaahay kuu gargaaro baan leenahay, wax kale ma dhahayno. ilmahaaga dee iska hayso, maxaad kaloo samayn ka dhaa. ilmihii hadday kuu korayna oo saad sheegaysa 20 sano ka hor ayaan isguursanaa tiri ninka, caruurta dabcan way kuu koreen, way weynaadeen, ayagaa kuu shaqeynaya insha allah, guri kuu dhisaaya. waxa aad la ooyeyso waa uun kulley waxa ugu muhiimsan waa uun runtii ninka lagaa qaaday keliya ma aha, waa hantida kaa maqan ood weliba aad sheegayso in aad ka gaajaysneed, ka aranadayd maaldha maxaan ku idhahdaa, aad caruurtaada aad dhehaysa caruurtayda siday rabaan wax uguma iibin jirin, xataa ma geyn weliga meel buufeed ah oo cunada laga cuno. runtii waa ka xumahay dabcan. marka intaasaan gabadhaa uga tegayaa arinteeda. waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego ninkii I am cali ahaa, ninkii gabar uu horey u guursaday. gabadha barnaamijka la daadihinaysa oo la wada waa gabar uu horey u guursaday bay dhaheen, oo taaj iyadoo xiran, oo gaarigii labadooda ay wada korayaan, asaga gaariga keliis kasoo degayo, gabadhii ay taagan tahay meel, cidna aan daba soconin, cidna aan arooska ka muuqan, cidna aan hareeraha taagnayn, gaariga uu taajka dabada ka qabanayo, uu gaariga ay gelayso. intaa un baanu aragnay. marka waxaan isleeyahay arooskaas iyo xaaskaas gabadhaas barnaamijka la daadihinaysana inuu feeg yahay, wax feegay ahayd. marka master feeg baan u bixinaynaa. marka cali waxaan u bixinayaa master feeg, wixiisoo dhan feeg bay noqdeen. gabadha barnaamijka la daadihinayso oo 5 gabdhood wareysanayso waa gabar hadda ka hor uu taaj usoo geliya, labadooda keliyana ay gaari raacayaan, cid islaam oo ag taagan jirin. taajka asagaa qabanaya, xataa gaariga markay gelayso gaariga asaga kasoo degaya, isaga iridka ka furaay.
wax islaam aroos waxaa lagu yaqaanaa dad badan inay isugu yimaadaan inay meesha buuq tahay heestii waxaa la shitay arooska aroosyada badanaa hadda loo shido gaarina meeshuu keenay isagaa waday gabadhii oo taash xiran oo meel taagan isla gabadhan bay ahayd oo maxaan hadda la leeyahay waa xaaskiisii marka I don't think so inay xaaskiisina tahay waxa dhan waa fake hadda korna fake taas uu sameeyay maxaan ku irahdaa isaga iyo gabadha ay wada sameeyeen waa faygii labaad ay sameynayaan hadeer marka waa laba faygiistayaal ah oo fayg isku raacay oo fayg inay dadka usoo bandhigaan fayg inay dadka u sheegaan been inay dadka ka dhaadhiciyaan mar walba usoo labisto u taagan arooskaasna gabadha inuu qabay waa fayg aawe dadkii aroos ka soo qayb galay aroos waa naqaanaa buuqiisa waa naqaanaa dadkii isugu imanaya aawe caa'iladiisi aawe iyada caa'iladeedii aawe saaxiibadiis aawe iyada saaxiibadeed aawe dadkii kasoo qayb galaya arooska aawe waa la arki lahaa marka waxa dhan fayg wey labadood waa faygiistayaal wey cali fayg baan u bixiya aniga gabadhan barnaamijka la wadana faygay la matashaa mar walba marka arooskan waa fayg ay matalayaan isagaa qaba ay soo qaateen ay soo heleen meelay kasoo heleen ma aqaane Soomaali waa jini haddana waxaan uu wado 5 gabdhood ee iyadu waraysanayso asagana uu la wado intaba waa fayg been السلام عليكم ورحمة الله وبركاته